السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي walaalaha channelkeena Samagarad ku xidhan. Muuqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa la jaanqaadista duruufaha qofka bini'aadamka siduu ula jaanqaadi lahaa duruufaha ku iman kara iyo isbedelada agtiisa ka dhacaya siduu qofku ula jaanqaadi lahaa. Hordhaca muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa cilmi baadhisyo runtii cashar mudan. Muuqaalkeena maanta waxaan guda galno. cilmi baadhis lagu sameeyay duqsi sida loo ogaado awoodiisa. Duqsiga ayaa waxaa la dhex dhigay qol madow. Kadibna duqsiga wuxuu isku dayay inuu ka baxo daaqada qolka oo xidhan. Kolba wuxuu midig iyo bidix u jeestaba, kor iyo hoos u boodaba ilaa uu daalay ugu dambeyntiina u dhintay. Nasiib darro waxa uu dhawaa albaab furan, laakiin isku mudayin inuu raadiyo dariiq kale oo uu ku baxo. waxaa cilmi baadhis kale lagu sameeyay jiir si loo ogaado awoodiisa caqliyeed. waxaana la dhex dhigay sanduuq yar. meel yaroo sanduuqa ka mid ah waxaa loo dhigay cunto. cuntadii muddo markuu halkaa ku cunayay ayaa meeshii laga bedelay oo meel kale ayaa lagu qariyay. jiirkii markaa wuxuu bilaabay inuu raadiyo cuntadii oo kolba meel uu ka dayo. ugu dambeyntii wuxuu ku guulaystay inuu helo meeshii ay cuntadu taallay. ma aragtaa sida duqsiga iyo jiirku u kala duwan yihiin? duqsiga keliya meel keliya uunbuu awoodda saaray, iskumana dayin inuu xal kale raadiyo. taasina waxay sababtay inuu sidaa ku dhinto. jiirkuse markii uu cuntadii ka waayay meeshii hore wuxuu ku dadaalay inuu markasta iskuday cusub sameeyo. haddii uu tallaabo ku fashilmo haddana iskuday kale u sameeyo. kolba dariiq cusub uu tijaabiyo oo aanu marnaba quusan. ugu dambeyntiina wuxuu helay abaalmarintii dadaalkiisa. waxaa laga yaabaa inaad tahay ruux dadaal badan oo shaqo badan oo jecel inuu guul gaadho, laakiin haddii aad u dhaqanto sida duqsiga waxaa hubaal ah inaad fashilmayso. awooddaada iyo xamaasadaaduna ku dhammaanayso meelaanay waxba ka soo naasacateen. laakiin haddii aad markasta albaab kaa xidhmo, aad albaab kale raadiso oo aad u dhaqantid sida jiirka, waxaanu shaki ku jirin inaad guulaysanaysid. wuxuu yidhi Tarlish, ku celcelinta lagu celiyo iskuday aanay natiijo fiican keenin weligiiba isbedel keeni maayo. markaa dadka waxaa jira qaar caadooyin xumxum ku celceliya, sida caadooyinka xunxun ee TikTok in 24 saacadood muuqaalba muuqaalka kuu sii dhiibo. haddaad caadooyinka leedahay caynkaas waqti lumiska ah weligaaba ka bixi maysid ilaahayo aad bedeshid maahaane. guusha ay gaadheen waddanka Japan waxa uu sababa la jaanqaadista kolba duruufta cusub. hadiyo jeeraale kor bay u qaadaan kartidooda waxqabad, waxayna nolol maalmoodkooda ku dawaqaan dhowr arrimood oo kala ah. Kinsan waa kelmad Jabaaniisa oo macnaheedu tahay wanaajinta joogtada ah. markasta waxay ku dadaalaan inay shay kasta tayadiisa intii hore kor uga sii qaadaan. haddaba la jaanqaadista iyo waafaqida kolba xaaladdu sida ay tahay aad ula socotid waxay qayb weyn ka qaadanaysaa xoojinta hadafkaaga. ninka la yiraahdo Brian Tracy wuxuu yiri 80% waxa aad samaysaa wuu isbedeli doonaa 5 sano ee soo socda. wax walba imika way isbedeleen siduu sheegayay bayna noqotay. maanta shaqooyinkii badi dadku ay qaban jireen waxa qabanaya robotiga dadka cuntooyinka u geenaya, robotiga shirkadii ka shaqeynaya qaarkood. marka maanta caalamku xoolay buu ku socdaan wax walba. marka wax muhiim ah qof kasto dhalinyaro oo Soomaaliya inuu la qabsado caalamka maanta iyo dunidu xoolay ay ku socoto oo xirfado la falgelaya waqtigan imika ay joogno u barto. waxaa jirta qiso ku saabsan nin kalluumaysataa. ninkanu markuu helo kalluun yar wuxuu ku ritaa saladiisa. haddii isagu helo mid weyn badda ayuu dib ugu tuuraa. nin ayaa arkay arrinkaa uu sameynayo, markaasuu la yaabay. wuxuuna weydiiyey sababta uu arrinkaa u sameynayo. niyo waxaan haystaa dheri aad u yar, markaa kalluunka weyn ma qaadayo, keliya kalluunka yar uun buu i karinaya. bal u fiirso, ninkaasu maskaxdiisa malaha soorana uu ka dhaadhiciyey. muu fikrad cusub ku fekero oo ah inuu dheriga iska bedelo, uu dheri weyn soo gato kadibna uu ku karsado kalluunkaas weyn. markaa ruux kasta oo maskaxdiisu meel keliya
keliya ku dhegtaa natiijadiisu waxay ku danbeyn doontaa inuu fashilmo. horaana loo yiri bartiisa yaqaanu bara uma korodho ee meel kaliya ku dhegsanaanin sida ninkaas ha noqonin ninka dhariga yar ku dhegsanaaday kalluunka weyna dayacay. marka adigu waxaad u baahan tahay inaad noqoto mid la jaan qaada kolba duruufta cusub. waxa kugu dhici kara inaad shaqadaada weydo ama xaaskaaga kala tagtaan ama shirkadaadu kacdo. marka waxa muhiim ah inaad dejiso qorshe cusub oo keenaya inaad mar labaad lugahaaga ku istaagto lana jaan qaado duruufta cusub ee ku soo waajahday marnaba aanan duruufaas ku dhiibin. igaho imikana qorshe aad ku gaadhisid furfurnaan dhammaystiran. intaana qodobadan u gelin waxaan kaa codsanayaa inaad buug iyo qalin soo qaadatid sidaan waxaan sheegayo aad meel ugu qoratid kadibna noloshaada ugu dabaqdid. qodobkeena koowaad diyaari liis ka turjumaya hadafyadaada una kala tartiibi sida ay u kala muhiimsan yihiin. hadaf kasta waqtigiisa u daa waqtigiisa ka hor dhicin. qodobkeena labaad dooro hadafka kugu mudan ee aad doonaysid inaad markiiba gaadho. waxaa jira dadyo badan oo aan waxaanay jecleen waqtigooda ku luminaya. marka wax muhiim ah inaad waxa jeceshahay waqtigaaga ku lumisid ee iskaga tagtid waxyaabaha aan jecleen ee naftaadu ka caajisayso. haddaad jeceshahay video editingka u go. haddaad jeceshahay engineering noqotid laamiyadan wadankeena ama bulshadeena Soomaaliyeed laamiyadooda jajabana dhistid u go injineernimada. haddaad doonaysid inaad noqotid inaan cunto macaan oo kaale araga cuntada u go walaal ayaan ku leeyahay. dhammaantiin dhalinyaro marka waxaad jeceshiin u go rag iyo dumarba. qodobkeena saddexaad saddex qorshe aad doonaysid inaad ku xaqiijisid himiladaada. hadduu mid ka fashilmo ka kale ayaad u gudbisaa waana istiraatiijiyad imika la adeegsado. qodobkeena afraad marka hore u diyaar garow dhibaatooyinka ka hor imanaya. wax walba markaad bilaawaysid dhibaata ka hor imanaysa. tusaale waxaad doonaysaa inaad jirtid caadada TikTok iska dhex fadhiga waxaana tahay qof TikTok 24 saacadood waqtigiisa ku lumiya. waxaad doonaysaa inaad caadada iska jirtid TikTok baad ka saartay moment naftaadu waxay koodhanaya TikTok la soo deg dadkii follow aad u saartay ayaa wax cusub soo dhigay ilaa naftaada la qabsatay. markasta isleedahay wax bedel dhibaata ka hor imanaysa. marka wax muhiim ah dhibaatooyinka aad ku samirtid oo dhabar adag kala gudubtid balse haddaad isku dhibtid laqad maata ayaad noqonaysaa. qodobkaasna waan isla fahanaa rajinaya. qodobkeena shanaad maskaxdaadu mar walba ha u fikirto sidii ay u keeni lahayd fikrado cusub. markasta maskaxdaada ha u fikirto. qodobkaas waxaan ka sameeyay muuqaal dhan tamleenkiisa weli kan arka fikradahaaga ayaa tamleenkiisa weey. marka muuqaalkaas aad challenge ugu laaban doontaa waxba qodobka ku dheeraamayna halkaasaan kaga gudbanaa muuqaalka inaad daawataan baan rajaynaya. qodobkeena lixaad ugu dambeeya maalin kasta u khaas yeel waqti aad ku muraajaceyso qorshayaashaada. qofka bilaadanka adigoo qorshayaasha iyo hadafkaaga iyo jalgulkaaga maalinlaha ku dhex jira ayay dhibaato ka hor imanaysa. marka dariiqa saxda ah markasta ku sii socon maysiduna wuxuunba ka hor imanayay ta waxa ku sii inaad ku sii xisaabtantid weeya inaad qorshayaashaada intaad akhridid aad tiraadid maxaa ii kordhay maxaa iga go'ay meesha aan doonayay ma u dhowahay intaan u jira inaad qorshayaashaada muraajaceysid. مهين مالين مالمها كميدا أيون بد قاعد دونتا لكن مراجعين مركز دوبها حبينا كوسمي وحي خالدا كاسو دحكلينا كسر الشاشة أيام كلية. قطب كاسن وجودن بيه مقال كنا قطب بدي مهم كاية إن كسو قادين إنه مقال كنت أنا كبحين وحن كاعو السنية إنها تشالن كادت كعصب تاي نوصل بيرتين سيدا الأولى سعتيد وحيابا عصب هالكاي سود إنه مقال كنا ليت بتصارسا سدودات بدن أو فايدستين أنت عدد وحكوسي درسنا كومتدا آيات كسو قرصا wixii aad muuqaalka ku daraysid waana muhiim fikradaaga muhiimka sidaan anuguna aan uga faa'iideystay ilaa bilaadanku markasta u baahan yahay xikmadana laga meedharkay hada fikrad cusub aad haysid nala wadaag oo committee ku cabiro sida dadka kale committee akhriyana uga faa'iideystaan inta muuqaalka xiga isugu iman waxaan iga tagay bashiyo barwaaqo ya caafimaad qab inta maanku gaajaysan yahay guuli waa wali wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.